السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalahayga mar kale ii muuqaal cusub waan idin salaamay meel kasta adduunyada aad ka joogtiin waa walaashiina Ifraax Bashiir janaalkana waa Ifraax Bashiir Kitchen maanta waxaan rabaa inaan sameeyno maadaama ay nagu soo fool leedahay ciideena weyneed ay nagu soo fool leedahay xalwo oo dad badan asxaab badan ay iga soo dalbadeen ayaan rabaa maanta inaan sameeyno balkaalay ila arka janaalkana janaalkiina waaye milinkiina waaye ku soo dhawaada ha ismartiyeelina asxaabtayda meeshan waxaan ku soo diyaarsaday meeshan waxa ku jiro subagaas ayaa ku jiro subaga wali ma dhilaalinin waa idin tusinaa habka uu dhilaalinayo subagaas 500 gram waaye ayuu ka kooban yahay iyo waxaan u isticmaalay saliid cadeey waan idin tusinayaa saliid cadeey inta isticmaali doono meeshan waxa ku jiro shacfaraan labadan waa shacfaraan ayaa ku jiro inta waxa igu jiro heel shiidan halkan waxa igu jiro joos ayaa igu jiro jooskeena oo shiidnaa ayaa halkaas ku jiro meesha waxa ku jirto waraangada iyadana waxaan u isticmaalayaa baakada dhan oo xiran ayaan u isticmaalayaa waraangada iyo 3 kiilo oo sokor ayaan u isticmaalayaa walaalahayga waxaan kaloo isticmaalayaa 3 litir oo biyo ayaan isticmaalayaa aan digsiga ku soo shubtay iyo waxaan isticmaali doonaa halfkiisa nus litir oo biyo oo hadhow aan waraangadii iyo aan ku qasi doono iyo shacfaraanka aan ku qasi doono ayaan u isticmaalayaa xalwadana way iska dhib badan tahay waxay u baahan tahay dulqaad badan ayay u baahan tahay marka waan idin tusinayaa by step habka aan iskugu dardarayo habka sida markaan dejinayo habka oo sida ay iskugu qabsanayso wuxuu dhan waa isagoo waadax ayaan idin tusin doonaa la socod wanaagsan haddana waxaan rabaa subagii inaan digsiga ku dhex rito waxaan sugaynaa ilaa uu ka soo dhalaalo lambarka waxaad u geysanay lambar 2 asaga iskiisa u dhalaalayo markuu dhalaalan hadhow xalwada markay diyaar soo noqotay soo adkaata ayaan ku kurdareynaa haddana waxaan iska gelinayaa gadaal biyaha inta waxaan ku soo shubtay 3 litir oo biyo ayaa halkan ku jiro digsigan aad u jeedin lambar 6 aan geystay dabka haddana waxaan gelinayaa 2 xabo caleen ilaa ay ka soo karkarto 2 xabo caleen ayaan dhex gelinayaa biyihii wali sokortii kuma darin markay soo karkarto biyahaas uu soo karkaro kadib waxaan ku darayaa 3 kiilo oo sokorta ahayd haddana waxaan sugaynaa ilaa ay ka karkarayso haddana waxaan ka saarayaa 2 xabo caleenta ayaan ka saarayaa biyihii way soo karkareen sokorta kiiladii sokorta ayaan ku hormarinayaa bismillaah haddana hal maraan qasaaya waxaan sugaynaa inuu soo karkaro markuu soo karkaro kadib waxaan ku darsanaynaa waraangadii waxaan ku darayaa baakadan oo waraango ayaan ku darayaa waa 400 gram iyo waxaan ku sii darayaa 2 qaando oo goonisi ah kulay waraango qof kasta yaqaano sabuulkaas laga sameeyay sabuulka galeyda laga sameeyay qof kasta yaqaano waraango wadankeena haduu yahay iyo hadii wadamadan Yurubta ay tahay Yurubtaan oo kale waa kana baakadaani ku jiraan baakadaha kulay kala noocyadooda kala duwan laakiin waxa ku tixraacaysa waxa ku sawiran sabuulkaas galeyda aad u jeedin maysena ala dhahaa wadankeena hadda filan aan ku noolnahay kulay waxaan rajeynayaa inaa wadamadaas kale aad ka helaysiin waxaan ku darsanayaa koobkaas buuxo oo biyo waa idin sheegay waa nus litir oo biyo ayaan ku darsanayaa aan ku qasayaa haddana waxaan gaaray qasitaankii haddana waan qasayaa waraangada wax yar ko aaday u adagtahay waxay kaaga dhageysaa salka hoose oo saxankii kaaga dhageysaa si fiican u walwalaa haddana diyaar waaye markuu soo haddana wuu noo soo karkarayaa waan ku gadinayaa oo la socda hadda intaan ku gadin waxaan ku darsanaa waraangada waxaan ku darayaa waraangadii 2 qaando ayaan ku sii darayaa hal baako iyo 2 qaando oo waraange ah ayaa waxa ku karinaysaa 3 kiilo oo xalwada kiilo hadii aad rabtidna qoraalka ayaan idinku soo qori doonaa habka kiiladii inta aad ku dareysid kiiladii sokor inta qaando waraanga aad ku dareysid 2 kiilo hadda kan waa 3 kiilo waxaan ku karinayaa hal baako iyo 2 qaando
haddana waxaan ku darsanayaa qaando, waxaan ku darsanayaa oo shacfaraan, qaando buuxdo. biyahana waxaan ku karkarsaday laba xabo oo caleen. liter oo biyo iyo waxaa halkan ku jiro waraango hal baako iyo laba qaando iyo waxaa ku jira hal qaando oo shacfaraan ayaan isku soo qasay. haddana waxaan ku shubayaa biyihii iyo sokortii ayaan ku dhex gediyey. bismillaah. aaday u dhib badan tahay, waxay rabtaa sabar ayay rabtaa. soona diyaarso qofku la qaso. waxoo dhan jaalahaasi isku noqdeen. adhow kalarkiisa markuu cabaar karo kalar qurux badan ayuu kusoo bixi doonaa, idinka arki doontiin. maasha Allah. haddana waxaan sugaynaa, uma baahnaba inaan sii walaaqo ilaa uu kasoo karkaro ayaan sugaynaa. iska ilaaliya, way soo boodboodaysaa iyo idiin gubin. maxaa la dhahaa, waxaan ku daray saliid, hal koob oo saliid ayaan ku daray. hadda aan kusii shubay marka oo la socda iyo idiin gubin. dabka u gaabsada lambar 4 oo kale u geysta ilaa ay ka badbadayso. maxaa la markay badbadka oo ay kala yareysana markaasiti waxaad samayn kartiin, dabka waa u dheereysan kartaa ilaa ay kasoo badbadayso. waad arkaysaa say usoo boodboodayso. hadda waxay noo saaran tahay 10 daqiiqo camal ay noo saaran tahay. sidaan aa ujeediin ayay noqotay. fari kama qodna faanoole. waxaa noo dhiman weli saacad. adi waxay ku karaysaa 2 saac iyo bar oo juustay ku kare lagu gedinayaa. waa ujeediin wax burburna iyo kaa yeelanin. waa arkaysa wax burbur ay yeelatay ma lahan. waxaan rajaynayaa inaad ka heshiin. subagii aan soo ilaaliyay. maasha Allah. sidaan ku soo baxay caraf. hadda waxay noo saaran tahay 1 saac ayay noo saaran tahay. maasha Allah. waa soo adadkaanaysaa. weli fari kama qodno waaye. walaaqitaankii ayaan weli ku guda jirnaa. sidaan aa ujeediin ku soo baxday. wax burbur la dhan weli ma yeelanin, mana yeelanayso. gacantaan saas ugu hayay maanta dhan waa walaaqay. marmar waa ka neefsan kartaa wax yar intay ay kugu soo markay soo badbadayso. dabka u gaabso, wax yar ka neefso. adisa u joogtid wax yar walaaq. xalwada waa inaa walaaqtid, waqti kasta waa inaa walaaqtid. kaliya markii ay aad u badbadaysa ma arag markaasiti dabka u gaabsanaysiin. intaas yara wax yar ka neefsanay. wax yar qaandadaad ku walaaqeen. haddana wax yar ka neefso qaandada, haddana ku walaaq. badbadkana markay joojiso kadib waa inaa waqti kastaba aad kor taagan tahay aad walaaqdid si ay burbur kaaga yeelanin. dadaa waxaa jira oo daboolo oo digsiga daboolo oo lambar yarna ku kariyo. ani kuley waxaan jeclay xalwad in waqti kasta in la kor istaagin oo la walaaqo.
حتى دلكيرو في عنتهاي حلوة لا دبول بدنا ويش شيرة هوست يجيبوا بنيسا حكوا في عنتها حلو إلا صار ولا ديكسي كان هذا أو جدين أو لحد وكم ذوي هاي حدي أدهليسي وتسمي سنكرتين هذا وفي عينها ولا قطان كتاقوم الربايو انت ولا قيسي هذا يوكو سهلايا كل دكان كلنا وضقض soo gartay ay ku sameystaa idin dhii lahaa haddii lacala aaweysan digsiga kale waa ku sameysan kartaa wax dhib ee ma lahan oo labada digsi waa lagu sameyn karaa wili subagii kuma darin hadda wili halkii koob oo saliid aan ku daray ayaa ilaa hadda ku walaaqoyaa gadaal aan daraya subaga iyo waxaan gadaal aan daraya heelkii iyo jooskii shiidnay gadaal ayaan aan dari doonaa waana arki doontiin markaan ku daraayo ربا هذا إن أنا كشوف الصبغي صبغ عرف مثل لو شوفه ما شاء الله إلا بعاد ما صبغ الدكسي أي درب كسارة سا صبغي تقولي لمبر لها جيسني أستجع إسكيس أقول لا لا يمكن دلالة كدي cusbadii digsiga ayuu ku harayaa subagii ayaa saxan kale ay ku soo gedisanaysaa kadib xawaas xalwada ku darsanay waxay noo sii saaran tahay 2 saac ayay noo saaran tahay haddana waxaan ku darayaa heelkii ayaan ku darayaa haddana waxaan ku darayaa jooskii ayaan haddana ku darayaa
hadda waa diyaar. hadda waxaan ku wada darsanayaa heelkii ayaan ku shubanayaa. جوز waa 24 gram, heelkana waa 24 gram. waa ku wada daray. haddana xalwadii diyaar waaye, waa gadinaya. waxaan rabaa inaan si fiican ugu qasaan rabaa, si fiican si ay carafta dhaxda aga gasho xalwada. ujeedii subagii oo dhan saasay u tuftay. xalwadiina hadda waa gadinaya. waxay noo saarneed 2 saac iyo bar ayay noo saarneed ay ku kartay. maasha Allah, saa u jeedin sidaan ayay ku soo baxday. waad u jeedin qaandada si u qabsanayso. ma haday saas qaandada u qabsato digsi ka soo foqdo, xalwadii waxa ku cad inay diyaar tahay. waad u jeedin maasha Allah qaandada iyo digsiga. haddana waxa la gaaray waad u jeedin maasha Allah sidaan ay noogu soo baxday. xalwadii diyaar waa. 2 saac bar ay noo saarneed. carafteeda lagama sheekay kala macaanteeda. walaalahayga sida quruxda badan oo dulqaadka badan aad ila socoteen aad iyo aad ayaan idinkaga mahad celinayaa. xalwadii maasha Allah si qurux badan ayay noogu soo baxday. carafteeda laga sheekeyn karin. dulqaad ayay u baahan tahay in loo dulqaato. kariskeeda way dhib badan tahay. qofna soo diyaarso kula walaaqo waa idinkugu sheegay. 2 saac iyo bar ayay noogu kartay. ciidana idal adha idal weynay oo hadda nagu soo fool leh. ilaahay nabad ha nagu gaarsiiyo. waa ciidii la cuni lahaay. hilibka ariga marka la isku dadaalo hala karsado. janaalkayga waxa ku jira asagoo anoo garab sameeynayo. mid kalena waan soo gelinaya insha Allah haddii waqtiga ii saamaxo si aad uga fiirsatiin. ka fiirsaday sameeysta insha Allah asxaabtayda intii igu xiran intii hore oo igu xirneed inta cusub hadda aan asxaabtayda aan naqanay. soo dhawaada dhamaantiina. janaalka waa janaalkiina milinkiina waay. ha ismartiyeynina. xalwadiina si qurux badan ayay noogu soo baxday maasha Allah. sidaad aragtiin aad ka soo aragteen walaalahayga. buskudkii ayaa noogu xigay insha Allah. hilibkii oo kalena saan idinkugu balan qaaday waan idin soo gelinayaa.
gabdho badan ayaa iga soo dalbaday muufadiyo kor birtaawada lagu sameeyay insha Allah waan idin soo gelinaa hadii Ilaah yiraahdo sida nooga barateenba waa idin tixgelineynaa maxaa la codsigiina commentigan hoos iigu dhaafay xalwadan isku daya bal sameystay arka aaday u macaan badan tahay carafteed lagama sheekeyn karo habka dhan oo wada waadax oo dhameystiran waa idin la soo socodsiiyay walaalahayga channelka waa channelkiina subscribe-ka iyo like-ta si oo subscribe-ka saara channelka si oo idin kugu soo dhaco waxyaalaha cusub aan soo gelino walaalahayga marka subscribe-ka iyo like-ta iyo share-ka waa dhankiina commentigana ii dhaafa waxay ii tahay dhiirigelin ayay ii tahay anigana waana ku mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة